وإذا السلامة دمانتين ميدي همانتا هالكن سوي يمد وحرب أنا كجوابه أرنا عن السوشيال ميديا كما غلي ورغد وسوق قري مدحوينها دول قبلات كير شباله مدن محمد عبد الواري وقرنيت حلك قادس أنا كجوابي ورغداس waxaan leeyahay waa sharci darro waxay ka soo horjeedaa dastuurka u yaala dalka iyo kan dawlad goboleedka Hirshabeelle sababtoo ah mar haddii la gaaro campaign iyo 6 bilood ugu dambeysay dawladnimada qofna xil looma dhiibi karo qofna xil laga maqaadi karo iyadoo ujeedadu ay tahay in la og yahay waxa maanta dhacay inay dhacayaan oo markii lagu dhawaado xilliga doorashooyinka dadka madaxda ah uu galo khalkhal siyaasadeed isla markaana ay taageero ku raadsadaan inay waxna xilka ka qaadaan waxna xilka u dhiibaan marka waxaan leeyahay maxamed cabdi waare war la qabaa xiisamo leh waxaan kuwa adiga kula mid ah oo sidaadoo kale u feelgaroobay ayaa hore u sameeyey marka ma shaqaynayso waa qodobka soo horjeeda dastuurka in qofku wuxuu isku aajisto qofkii uu arko inuu challenge ku yahay ama uu kursigiisa ku dhow yahay ama damac ku jira isaga mid lamada uu ku jiro inuu xilka ka qaado waxaan leeyahay marka fikirkaasi waa fikir oo fashil ah oo horta lagu soo fashilmay anoo ku hadlaaya magaca maamulka gobolka Hiiraan iyo magaceygaba waxaan cambaaraynaa dhaqanka xun iyo hogaaminta xun maanta ka jirta dawlad goboleedka Hirshabeelle u baahan in dib loo dhiso waxaan leeyahay waxaad ku feelgarowday hogaamintaadii dhinaca siyaasadda waxaad og tahay inaad wax ka qabo waysay xaanshidii adiga aad qortay aad gudoomiyaha degmada Buulaburta ku magacaawday aad Buulaburta geysay aad meel mari waysay 30 casho aad meesha jiiftay oo aad ku feelgarowday oo aad ka carartay ayaan muddo 7 maalmood ku soo dhameeyay adoo ka xun arrimaha noocaas ah iyo kuwa la mid ah aan wadanka ka qabtay aan gobolka ka qabtay ayaa ku riday masayrka noocan oo kale ah marka waxaan filayay aqligaaga iyo garashadaadu in intaas ay ka badan tahay marka waa nasiib darro wadanka wada leenahay waan u shaqaynaynaa yeelina meeno dhaqamada noocaas oo kale inay meel maran muddadii aan meesha joognay waxaan ka qabanay mashaariic waaweyn oo waxtar leh kuwa kale badan hadda ay noo balansanaayeen waxa marxaati ka ah meesha maanta aad arkaysaan oo aan taaganahay kaamarooyinka ay hayaan noocay u taalo iyo standardkeedu waa aragtaan markaan imaanaynina waxay ahayd musquul oo kale wax lagu tilmaamo waxaan leeyahay si degdeg ah ha loo helo dhismo cusub ee dawlad goboleedka Hirshabeelle ha loo soo gurmado dawladda federaalka ah iyo beesha caalamka sidii loo dhisi lahaa maamulka Hirshabeelle ee fashilmay annagoo rajeynayna ilaahay idinkiis in uu heli doono cadaalad iyo dhismo wanaagsan anoo ka faa'iideysanaya fursadda maanta waxaan rabaa inaan sheego 3 sano maxamed cabdi waare uu joogay dawlad goboleedka Hirshabeelle hal ceel uu qoday ma jiro magaalada Jowhar ee caasimadda u ah dawlad goboleedka Hirshabeelle ee aan daraa tagay hal biib taxta lagu soo kordhay ceel warkiisa iska dhaaf intii jooga ka qaxday wadadii furnaada xirantay wixii la qabanaya qabsoon waayay marka Hiirana warkeeda ba iska dhaaf wuu yimaadaa markuu yimaadana wuxuu yimaadaa danooyin kale isaga u gaar ah oo kulligood wada ah wada lugooyo ma aha qof runtii ujeedadiisu ay tahay inuu shaqeeyo ama ambition iyo damac siyaasadeed leh waa nin damac dhaqaale aqligiisa maskaxdiisa uu ku beesgaraysan yahay qof noocaasana ma noqon karo leadership oo dalka dadka dhisa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan ilaalinaynaa dastuurka waxaan u hogaansamaynaa qawaaniinta dawliga ah haba yaraatee
wax aqoonsi ah oo ay leedahay warqadaasi ma jirto umana hoggaansami doono gudoomiyaha sharciga ah ee dastuuriga ah ee gobolka Hiiraan annaga ayaa ah ilaa iyo inta laga gaarayo dhismaha dowlad goboleedka Hirshabelle aad iyo aad ay u mahadsantihiin dowladda federaalka waxaan u diraa inay sida ugu dhaqsaha badan u soo fargeliso arrimahan mas'uuliyadda guud ee waddanka Soomaaliya iyada ayaa iska leh marka mar haddii statekii uu fashilmay leadershipkiisii uu fashilmay maamulkii meesha ka jira uu fashilmay muddo 3 sano ah aqliga meesha yaalla oo ahaa aan shilmaan ku raadsanno iyo shaxaad uu noqday ee haba yaraatay wax qabad aanu jirin waxaan ugu baaqaa dowladda federaalka ee beesha caalamka in si degdeg loo soo fargeliyo dowlad goboleedka Hirshabelle sidii maamul loogu sameyn lahaa xilka qaadisteeda muddo gudoomiye waxa ku tilmaamtay ama ku sheegtay in tahay dastuurka dalka iyo kan dowlad goboleedka Hirshabelle baalmarsan dastuurka Hirshabelle qodobka qoraya ama farqadaysa sheegaysa in gudoomiyaha gobolka xilka aan laga qaadi karin markii madaxweynaha madaxweynaha 5 bil 6 bil wax la mid ah ka dhiman tahay haddii aad nala wadaagi karto oo aad sameeyso dastuurada dhan waa isku wada qaynuun waay dastuurka Hirshabelle wuxuu ka yimid dastuurka dowladda Soomaaliya waana sharci caalami ah oo dunida dhan laga wada aqoonsan yahay Soomaaliya dhan laga wada aqoonsan yahay oo looga soo horjeedo dictatorshipka marka qodobkaas waa qodob dastuuri ah oo runtii u heelinaya geedi socodka doorashooyinka sidaad ogtihiin shalay waxa ku dhawaaqay wakiilkii rasmiga ah dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka isaga ayaa ah ninka ilaaliya dastuurka saad maqlaysiin shalay asaga ku dhawaaqay inuu qodobkaasi uu yahay qodob dastuuri ah oo jaban waxaan ugu maqaala ah saacad gudoomiye in hawshii adkeed ee gudoomiyaha aad ka qabatay iyo warar bulshada ay isla dhaxmarayeen maalmihii ama todobaadkii u dambeeyay oo ahaa in adiga oo ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan cali macraale sharax madaxweynaha Hirshabelle aad tahay madaxweynaha Hirshabelle xilkiisa oo kaaga baqay taana ay kaliftay xilku ka qaado arrintan maxaa ka jira wallahi kulli dagaalka rasmiga madaxweynuhu wuxuu bilaabay markii aan buluurta ka soo noqday isagoo ujeedadiisuna ay tahay inuu markasta uu gobolka keeno nin isaga aan u arkin inuu khatar siyaasadeed uu ku yahay nin ka dambeeya ama ka liita isaga oo loo dashiibnidiisana oo taqaanaan marka arrintaas marka waxay keentay cabsi gashay isaga oo cabsi runtii wuxuushnimo ah marka arrimahaas way jiraan waa arrimo sax ah waay cabsi badan way gashay waddankana waa la wada leeyahay anna ambition hortiis ayaan qabay siyaasadana waa uga soo horreeyey hortiis ayaan ka shaqayn jiray marka arrimahaas way jiraan gudoomiye gobolka soo magacaabay adiga wali waxaad sheeganaysaa inaad tahay gudoomiyaha sharciga ah ee gobolka Hiiraan markii adiga lagu magacaabay waxaan ognahay in xilka aan la wareegtay muddo badan ay qaadatay isdiidida kadibna dad saraakiil ah ay ku nafwaayeen markana waxaad diyaar u tahay gudoomiye magacaabistaada inay dadku dhintaan markana xilka qaadistaada inay dadku dhintaan waxaad diyaar u tahay inaad tanaasul samayso oo xilka aad u weydiiso si dimuqraadiyad ay ku dheehan tahay oo si fiican sumcadaada siyaasadeed ilaa shanaya wax walba oo sharci darro ah u tanaasulay waa mahadsan tahay runtii waa su'aal muhiim ah waay annagu mar walba waxaan diyaar u nahay inaan ilaalino dastuurka waxaan u taaganahay danaha iyo dastuurka dadka aan matalo gobolka Hiiraan inaan ilaaliyo diyaar uma ihi ummadeenna in la baabi'iyo diyaar uma ihi in Hiiraan la kufsado arrimahani waa kufsi waay ninka maxaan ku rahdaa leaderka u ahna waa nin shilmaan oo u muuqato uma muuqato waxyaabaha aan ka hadlayno oo qadiyadda gobolka Hiiraan ah wax badanna waa isku qabannay dadkana markhaati ayay ka yihiin marka anigu waxaan diyaar u ahay inaan u taagnaado maslaxada iyo danaha gobolka Hiiraan ilaa inta aan maxaan ku rahdaa aan joogo iyo intaan nafta aan qabo